English dialogue wada sheekeysi Ingiriisi ah. Sahra and Ahmad. Sahra ayaa hadalka bilowday. Waxay ku dhahday, "Hi Ahmad." "Hi Ahmedow. How are you dear?" Sidee tahay Khaliyo? Ahmad hadalkii uu soo gaabiyay nin bashbash oo farxad badan u ahaa wuxuu yiri, "I'm good." Waa wanaagsanahay. "I'm good." Waan wanaagsanahay. Sahra baa markaas jawaab su'aal kale siisay, "Where did you go these days?" Maalmahan halkee baad aaday? "I didn't see you." Kumaan arkini. "Where did you go?" Halkee baad aaday aad u baxday? "These days." Maalmahani. "I didn't see you." Kumaan arkini. Ahmad markaas soo yiri, "I don't know." Ma aqaano oo ma garanayo. "What do you want?" Waxaad adigu ka rabto. "Where I went." Meha aniga aaday. "I don't know." Ma aqaano. "What do you want?" Waxaad ka rabto. "Where I went." Halka aniga aaday ama meeshaan aniga aaday. Sahra markaas ay dhahday, Ahmedow, what is wrong with you? Maxaa ka khaldan adiga? "I am your love." Aniga shaxshaxleedaada jeclid baan ahay. Jecelkaagi baan ahay. Oo maxaa ka khaldan? Ahmed markaas uu yiri, "You are not my love." Adiga jecelkaagi ma tihid. "You are not." Adigu ma tihid my love, jecelkaagi. Sahra markaas ay dhahday, "Are you crazy? Ma waalan tahay?" "I am Sahra." Ani waxaan ahay Sahra baan ahay. "What happened to you dear today?" Maanta gacaliyo waxa kugu dhacay. "What happened to you?" Maxaa kugu dhacay? "Dear Khaliyo, today maanta maxaa kugu dhacay?" Markaas oo yiri Ahmadkii, "Stop talking." Hadalkii jooji buu yiri. "I don't keen on." Ma ka hela aniga like you. Nooca oo kale aniga ma ka helo. "I don't keen on." Aniga kama helo like you. Adigoo kale. Sahra markaas ay tiri, "Ahmad, please don't do that." "Ahmedow, fadlan taasi ha sameynin." oo hadaladaas igu dhahday oo jooji. Ahmad markaas soo dhahay, "Go away from here." Halkan ka tag. "I can't listen." Ma dhageysan karo your meaningless words. Hadaladaada micno darada ah. Ahmed markaas Sahra markaas dhahday, "Please fadlan don't cheat me." Hay khiyaanin. "Don't cheat me." Hay khiyaanin. "Because maxaa yeelay I believe it you." Waxaan ku aaminay 100% boqolkiiba boqol waan ku aaminay. So saawadeeda try isku day to understand me please. Ina ifanta fadlan my dear Ahmad. Gacaligeyga Ahmedow. Ahmad markaas oo yiri, "Sahra, listen to me carefully." Sataxadar leh ii dhageyso. "I want anigu waxaan rabaa to tell you inaan kuu sheego very important to you. Wax aad adiga muhiim kugu ah inaan kuu sheego baan doonayaa dhageyso. Don't waste you. Don't waste. Ha iskaga lumin your expensive time, your experience time, or your precious time. Waqtigaaga khaaliga ah ha iskaga lumin with someone who don't love you. Aan ku jecleen ha iskaga lumin qofku jecel iska raas.